video commercial ka 13 second ah ee aad soo daawateen waxay ugu qaadatay inaad dib u sameeyo ama aad create gareeyo muddo toddobaad ah toddobaadkaas oo isugu jiray mar aan research ka sameynayay iyo mar aan baarayay sida aan ku sameyn lahayd tipska iyo trickska shots kamid ah oo ah kuwa aad u dhib badan tusaale ahaan midka serialka oo kor u biibayo kale midkaas waa the most difficult shotka ugu adkaayo ahay aan inta sameynayay commercialkaasna waxay inspire gareeyay Daniel Schaffer waa filmmaker degan Canada asna Daniel Schaffer sidoo videogiisa ku sheegay asna waxay inspire gareeyay Austin Paul oo asna ah filmmaker ujeedka videogan marka aan sameynayay wuxuu ahaa in aan ogaado waxa aan ku sameyn karo ama waxa aan ku soo saari karo qalabka aan aniga haysto anigoon u baahanaynin ama anigoon raadin qalab qaali ah wayna dhacday oo waana sameeyay oo sida aragteen waxa dib u sameeyay commercial ay sameeyaan dad haysto qiimo fiican softbox full frame camera lenses high quality ah ayaan aniga qudheeda waxaan dib u sameeyay anigoo isticmaalaya qalabkayga oo ah mid kooban oo yar oo raqiis ah ayaan dib u sameeyay muhiimadda ama ujeedka videogan ayaa wuxuu ahaa marka aad sameynaysid wax in aadan u baahnayn qalab qaali ah oo aad kaliya lagaaga baahan yahay dadaal iyo hard working kadibna aad la imaan karto wixii ay sameeyeen dad haysta qalab high quality ah marka waxaan maanta halkan ka challenge gareysanayaa youtubers Soomaalida anaga hadii aan nahay content creators bahwadaag youtuberada kale isaga dhownahay waxaan maanta halkan ka challenge gareysanayaa saaxiibkii Cabdiqaadir Geedo oo aan leeyahay challenge-gan waa inaad soo furtaa waxaan rajeynayaa inuu ka soo bixi doono challenge-gaas hadii aad daneynaysiin inaan sameeyo timeline breakdown ama sidaan u edit gareeyay sida aan u duubay ila soo wadaagay qaybta hoose comment-ga waan soo sharxi doonaa muuqaal aan ka sameyn doonaa haduu ilaahay peace